taliyaha kastamka degmada Darweyne oo juqraafi ahaan dhacda koonfurta waqooyi ee degmada Ceelifin Jaamac Maxamed Saalax ayaa maanta warfidiyeennada kula hadlay koonfurta degmada Ceelifin waxaana uu sharaxaad ka bixiyay sida habsamada leh uu shaqeynayo kastamka muddadii koobneed oo xilkaasi hayay iyo kontrabaanada kala duwan ee gacanta ku soo dhigeen dhinaca kale taliyuhu waxa uu fariin u diray ganacsatada kala duwan ee gobolka Sanaag iyo kuwa ay badeecadooda ka soo goosto gobolada kala duwan ee dalka inay cashuurtaan badeecadooda dhanka kale taliyuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka codsaday maamulka gobolka Sanaag oo ay ugu horeeyaan taliyaha kastamada cashuuraha ee gobolka agaasimaha guud ee waaxda cashuuraha iyo cid kastoo ay hawshan quseysho inay sida ugu dhaqsaha badan u keenaan gaari ay ku hawlgalaan maadaama ay fogtahay masaafada laga soo qabanayo kontrabaanka kala duwan dabeyntii waxa uu taliyuhu tacsid tiraanyada u diray qoyskii qaraabadii iyo eheladii ka geeriyooday Allah u naxariistay marxuun Cabbaas Maxamed Diiriyo oo taliyihii saldhigga degmada Garadag oo gacan ka xaqdaran ku dishay tuulada Godheeli ee gobolka Sanaag anigoo ah taliyaha kastamka Darweyne Jaamac Saalax marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa jananka ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland jananka xigeenka ee ciidanka Somaliland ee ciidanka booliiska Somaliland taliyaha laamaha cashuuraha ee turbataariyada taliyaha qaybta gobolka Sanaag barasaab gobolka Sanaag agaasimaha guud ee kastamada cashuuraha Somaliland waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ka warbixinaya kastamka shaqadii uu qabtay intii uu furaa intii aanu shaqeynaynay waxaanu qabanay adigu baabuur fara badan oo inta badan ah baabuurta kontrabaanka qaada maraa wadada toosan la yiraahdo ee ka shaqeysa Darweyne baabuurtaasi shaxmado badan oo kala kaanabay sideen ciidanka ilaalinta cashuuraha ayaa gacanta ku dhigay wuxuuna u socday kastamku si habsamiya oo wanaagsan waxaan kaloo halkan ka hambalyeynaya nimanka degmada Ceelifin nimanka baacimisarka ee booyadaha leh sida Khadar Amaan Ducaale iyo Good Xamdulla Jaamac sida wanaagsan ee ay iyagu u cashuurteen baabuurtooda iyo shidaalkooda aad baan iyana ugu hambalyeynaya waa niman muwaadiniina iyagu way yimaadeen wayna cashuurteen ilaa imarkana si wacan bay u cashuurtaan maalintay baxaan baa wayna soo maraan waxa jira weli kontrabaanlayaal mara wadada dheer waxaanu nahay tiradayada ciidan iyo tayadayadu isma leh markaad eegtid tayadayada gobolka Sanaag 40 casho abaan joognay lacag 70 milyan markaan ku qiyaasno ayaan soo hoynay kasabkaas Darweyne 40 casho waan joognay oo wax ilaahay loogu shukrin dhaqaa waayo 40 casho waan joognay lacag 70 milyan gaadhisana waan ku soo hoynay qasnada dawladda shaqadiina wali way socotaa waxaanu nahay anagu wax iyagu waa gurule Darweyne baabuur nooguma soo leexto nooguma timaado afar gaari oo ay leeyihiin walada reer Ceelifin mooyee iyo gaari Garadaga saddexda gaari baan ugu soo leexdo saddex boqoyadooda markay shidaalka doontaan way soo maraan iyagu kuwii kale wadadoodii way wali maraan wadada aanu ka shaqeynaa baaxadda ay leedahay 80 kilomitir oo maxaan ku raahday isweer weeye ilaa 25 wado baa mara 25 ka wado in bataan tagna mooyee ta kale ayay u guuraan imikana wax baabuur ah oo noo shaqeeya ma jiraan laba gaari baan adeegsan jiray labadii gaariba way dhigaxun yihiin waxaanu ku cadsanaynaa cid kasta si ay u sii socoto shaqadii dawladdu oo maxaan ku raahday aan uga faa'iideysano nimanka cadawga ah kontrabaanlayaasha si degdeg ah in lagu soo sameeyo baabuurtii nolol soo diro hadii la nafta noo daayo ayaanu ka codsanaynaa cidda ay qusayso agaasimaha maamulaha guud ee Cergaabo isaga laftiisu jadween buu nagu darsaday uu nala shaqeeyay gaadiidka uu noo soo diri jiray maxaan ku raahday raashinka uu nala daba socday maamulaha guud ee Cergaabo isaga laftiisu mahadnaq baan u hayaa weyn waxaan ka codsanayaa madaxda dawladda cidda ay qusayso kastamkii wuu furan yahay laakiin kontrabaanlayaashii basaasiin bay leeyihiin dhinacay naga maraan ilaa hadday ugu badan yihiin waxaanu ka codsanaynaa in ay si degdeg ah baabuurtiina loogu soo sameeyo shaqadiina halkii ay ka bilaabanto waxaan kaloo ka codsanayaa taliyaha waaxda cashuuraha ciidanka Cismaan Xaashi inuu isna ciidanka
noo soo kordhiyo 3 askari baanu kaga hawlgalnaa 80 kilomitir oo wada ah haddii ciidan naloo helayna ciidanka naloo soo kordhiyo waxaan ka taxsiinana taliyay saldhigga degmada Garadag ilaahay waxaan ka taxsiinaa dadkii uu ka baxay xaasaskiisii iyo eheladiisii ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo iyagana waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu samariyo iimaan ka siiyo mujaahid weeye dhintay isagoo waxa ku dhintay xaq buu ku dhintay dalkiisa iyo dadkiisa maslaxadiisu ka dhintay Abdirashaad Maxamed laanta afka Soomaaliga CBA koonfurta degmada Ceelifin